السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانا قيادة يوتيوب أن السلامي عشر كان عاوي كسبسين هاي سيدان اسكتر لهن انترنت داونلود مانجر marka ciladahan maro badan ayay soo laalaabataa dadka badanana markay iskatiraan macnaha internet wuxuu leeyahay marka hadda internet download manager ka furno wuxuu soo saarayaa serial numberkaaga waa fake haddii aad furtidna markasta sidaan ku ahaana formatting haddaa samaysidna sidee loo sameeyaa marka dadka badanaa waxaa ka qaldan formatiga markay sameynayaan start menu console banner waxaad tagaysaa meesha ka qoran tahay uninstall program markii uninstall program aad tagtid waxaad tagaysaa meesha ka qoran tahay ayaa taabanaysaa internet download manager ka markaa right click ku dhahdid uninstall ayaa dhigi kartaa ama meeshan ayaad ku dhufi kartaa isku meeshii waa labadaba meeshan waa marka dadka badan meesha waxaa ku qoran default ayaa ku qoran ma la rabo waxa laga baa inaad ka dhigtid meeshaas haddii aad rabtid computerkaaga inaad ka tirtid ama ka masaxdid sidii qofba u yaqaano inaad full ka saartid kadibna aad negasi dhahdid kadibna aad finish hadaad dhahdid wuxuu sameynayaa computerka uu isdaminaa kadib markuu computerka isa soo shido wuxuu ku leeyahay computerkaaga kuma jiro internet download manager marka aan baraaweyno finish ayaa leenahay haddii uu damiyana waan isku soo laabaninaa insha allah biidnillahi kariim aan yara sugno marka wuxuu ku dhahaa fiiri meeshaan Internet protocol option have been changed. You need to reboot your computer because of macnaha waa u baahan yahay computerkaaga haddaan okay dhaho wuu ka baxayaa qadka marka waxaan sameynayaa videoga marka wuu go-ayaa okay ayaan marka computerka dib ayaan usoo shiday waxaan ka fiirinaa markaan haddii uu computerka ku jiro waxaad ku ogaan kartaa start menu ayaad tagaysaa kadibna my computer ayaad tagaysaa kadibna waxaad tegaysaa drive c-ga ayaad furaysaa double click kadibna program ayaad fiirinaysaa folder meeshaas ma ku leeyahay marka waxaad taabataa xarafka ay taabo waad ujeedaa inuusan ku jirin intaan saddexdan ayaa ku jirta intel internet explorer iyo iopit saddexdaas ayaa ku jirta internet download manager waa ka tirnay marka insha allah biidnillahi kariim waxaan rajeynayaa inaad sidaas ugu tigi kartid haddii kale intaad ku qorno intaan ku qoraynaa internet download manager waad ujeedaa inuu ku soo baxayn folderkan wuxuu sheegayaa inuu documenti ku jiro ma aan drive c-ga kuma jiro marka insha allah biidnillahi kariim waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan wixii su-aalana comment ay ku soo qori kartaan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran